Wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble Midowga Musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa caawa casho sharaf waxaa magaalada Muqdisho ugu sameeyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor shirkaas oo uga mahadcelinayay sidii uu qabsoomay. Waxaa shirka ka soo qayb galay dhammaan midowga musharaxiinta qaranka Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan maamul goboleedyada madaxdooda. Waxaana halkaasi uu ka dhacay hoyga uu ka degan yahay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Waxay iska xog wareysteen sidii ay u heshiyeen jadwalkii doorashada iyo waxyaalihii la soo maray intii lagu guda jiray shirkii looga hadlayay doorashada Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble oo ugu horreyn qaatay hadalka ayaa waxa uu sheegay inuu uga mahadcelinayo dhammaan tanaasulka ay sameeyeen madaxda maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta oo uu ku sheegay in go'aan macquula ay ka qaateen arrinta ku aadan doorashada Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa uga mahadceliyay dhammaan maamul goboleedyada tanaasulkii ay ka muujiyeen sidii doorasho rasmi ah oo la isla oggol yahay dalka ay uga dhacdo. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ugu dambeyn waxa uu sheegay in jadwalka doorashada ku qoran ee maanta la soo saaray in aysan waxba ka bedeli doonin xilligeedana doorashadu ay ku dhacdo. Dhinaca kale, madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa ay iyaguna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in doorashada Soomaaliya ay ku dhacdo waqti la isla oggol yahay iyada oo wax khilaaf ah uusan jirin. Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo gogosha caawa dhigay ayaa waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay inuu caawa arko dhammaan madaxdii qaranka oo ku sugan hal gogol iyaga oo doorashadii Soomaaliyana la isla oggol yahay. Waxaa madaxweynaha maamulkaasi Puntland Siciid Cabdilaahi Dani iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe iyaguna ay shaaca ka qaadeen inay ku faraxsan yihiin in ay doorasho la isla oggol yahay waddanka ay ka dhacdo oo dadka Soomaaliyeedna ay uga mahadcelinayaan in doorasho la isla oggol yahay ay ka dhacdo. Dhammaan markii shirku uu soo idlaaday ayaa madaxdu waxay isku marxabeeyeen halkaasi iyaga oo sheegay in la isla qaato jadwalkii maanta laguna soo dhiso cid kasta dhinaca ay ka qusayso iyo boroseeska loo marayo in doorasho la isla oggol yahay waddanka ay ka dhacdo.